محوية حكم كقفكو إنه لا تعامله gabadhii u doonanayd mesela gabadh baa u doonan wali looma meherin gabadhaas xaasnimo mawla maaragtay tacaamuli karaa wuxuu intaas sii raaciyay saailka soo qoray maxaa farqi u dhaxeeya muxuu yahay gabadha waanu ku siinay iyo waanu ku meherinay ma isku mid uunba mise farqi baa u dhaxeeya fala tafadal sheekh maxamed su'aashan kale nin baa ruuxii dumarka ahayd ee uu la haasaawayay ama guurka kala sheekaysanayay ayuu xumaan ku sameeyay sino arintaasi waa sinow kalmada ay sameeyeen labadii qof isu doonanaa ana inantii waa lagu siiyay baaba laakiin looma meherinin dawri waa ajnabiya mar haddaanu aqadkii sharciga ha ugu dhicin waxay noqoto maaha xaaskiisii wali maaha marka galmada uu halkaa ka dhacday waa sinow in ilaahay u toobad keenaana waa waajib isla markaana si sax ah ay isu mehersadaan maxaa u dhaxeeya siinta iyo meherinta waa arrin runtii u baahan dadku waxay sheegaysaa in aqoontii diintu ay yar tahay siintu waa iyadoo lagaaga jawaabay codsigii inanta isii ahaa waa ijaabatu alkhidba inantii hala isiiyo waa lagu siiyey waxa macnaha duntii baa kugu xidhan laakiin kuma mehersano xalaal kuma aha marka waa in la helaa caqadkii sharciga ahaa oo weligu isagu inanta kuu meherinaya intuu ku gacan qaado farwaaweyn markaynu ku qorno ama de sheekhi uu wakiilanayay sheekhaasina uu ku meherinayay marka kol hadaanu aqadkaas dhicin iyo guntinta heshiiska al-ijaab wal qabuul baa la yiraahdaa xagga sharciga oo guntintaasi aanay imanin siintii lagu inanta waa lagu siiyay dadku bay kaaga soo yara dhawaatay laakiin xalaal kuma aha oo galma ma jirto isla gooni noqosho ma jirto sidii dumarkii ajaanibta ahaa ee kale ee meelaha joogun bay la midtay marka dad badan runtii siinta way ku logo'aan ilaa guurka xalaasha ay aqadka la gaaro meherka sharciga inta ka horeeya xalaal maaha kalmad iyo muaamaladu wallahu a'lam